shirweynihii 29aad ee ururka midowga Soomaaliyeed Sweden ayaa lagu qabtay caasimadda Sweden ee Stockholm. Dallada isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed Sweden waxaa la aasaasay sanadii 1995 waxaana dhidibada u aasay Sheekhi Weynaa Sheekh Cumar Faaruq. Ururka labadii sanaba mar waxaa la soo doortaa hogaanada kala duwan ee ururka. Sanadkan waxaa dib loo doortay hogaankii hore kadib markii lagu qancay waxqabadkii labadii sano ee la soo dhaafay. ugu horeyntii munaasabadan waxaa daahfuray hay'adda safaaradda Soomaaliyeed ee Sweden Mudane Cabdullaahi Cabdirashiid iyo gudoomiyaha degmada Yarva Rashiid Maxamed. waxaa iyadana aan bogaadinayaa in laga soo bilaabo aasaaskii ururkan hadda laga joogo muddo 30 sano ah uu wali shaqeynayo una ka shaqeynayo midnimada iyo isku duwaridda dadka Soomaaliyeed ee halka ku nool. runtii arintaas waxay na tusinaysaa sida ay u yahay ama u guuleystay. waxaan inta badan ogsoonahay markii jaaliyada iyo ururo laga sheekeenay wadamada qaarkood inay yar tahay urur saan oo kala ah oo muddo inta leeg soo jiray oo shaqeynaya oo waliina ku shaqeynaya ahdaaftii iyo ujeedooyinkii loo aasaasay. sida aan videoga hadda ku arkaynay runtii waxaa moodaa inuu ku soo guuleystay guulo waaweyn oo ay qayb ka tahay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha iyo horumarinta wadankii. waa kuwan qaar kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirkan oo dareenkoodana la wadaagay. magacaygu waa Fartuun Axmed Nuur, waxaan ka imid magaalada Boorleenyo. waxaan ka soo qaybgalay shir sanadeedka ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed. aad iyo aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan loo soo qabanqaabiyay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Xasan Casood, waxaan ka imaaday magaalada Boden waqooyiga Sweden. farxad bay tahay in aan ka soo qayb galo shir sanadeedka ururka isbahaysiga oo aan xubin ka nahay. dinkana ilaahay waxaan idinka rajaynayaa guddiga cusub iyo tiimka cusub ilaahay idinku asturo hawsha aad qabateen oo ummaddiina u haysaan. waa ogahay idinka oo aan cid wax ku siin baa dhaliil iyo aabi iyo cay iyo handadaad inta wala idinku sameynaya. waa ogahay goobjoog baan ahay, arrimahaas waa la socdaa, laakiin dulqaad iyo waxa looga gudbi karaa iyo ujeedada aad leedihiin oo la fihiin inaad u qorraxsan dadkiina. ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden wuxuu kaalin weyn ka qaatay dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed laga soo bilaabo dowladda Carta oo Sheekh Cumar Faaruq door weyn ku lahaa. Saabir Cilmi Yuusuf, warbaahinta qaranka Sweden.